laakiin annagu waxaan nahay ganacsato taajir ah. sidee bay ugu adag tahay in taajirihi soo galo boqortooyada ilaah in taajirihi soo galo boqortooyada jannada waxaa ka sahlan in uu maro cirbad duleelkeed ayaa dabadeed badbaadi kara waxaan dadka u suurtoobaynin waa u suurtoobaan ilaah xaggay middan ka ahaan doontaa boqortooyada ilaah boqortooyada ilaah uma timaado habkan loo arkayo ninna ma odhan doono fiiri waa taas ama waa tan waayo boqortooyada ilaah waa idin dhex taal waqti ayaa iman doona aad idinku dooni doontaan inaad aragtaan wiilka aadanaha laakiin maad arki doontaan sida uu hilaacu uga ifacirka gees ilaa gees ayaa ay ahaan doontaa wiilka aadanaha maalintiisa laakiin marka hore waa in uu in badan silcaa oo ay didaan dadka maanta jooga way ka fudud yihiin cirka iyo dhulka oo la waayo inta shay yar oo sharciga ka mid a la jebin lahaa nebiyo iyo boqorro badan ayaa damcay inay arkaan waxa idinku aad aragteen oo maanay arkin ayna maqlaan waxa aad maqasheen oo ma ayan maqlin maxaanu samaynaa maxay qoraalladu leeyihiin sidaad u fasirtaa iyaga rabbiga ilaahaaga ha ku jeclow qalbigaaga naftaada iyo xooggaadoo dhan iyo maskaxdaadoo dhan oo dariskaagana sida naftaada u jeclow waad quman tahay sidan samee oo waad noolan doontaa kumaa dariskayga ma aha askartan kaysarse beri baa waxaa jiray ninka tegay yeruusaalem oo u socday yerixo oo tuugo ayaa weerartay oo intay furteen oo dileen ayay isagoo bastiisa ka tageen waxaa dhacday inuu nin wadaada meeshaasi marayay oo markii uu ninkii arkay ayuu waddada dhinaca kale ka maray sidoo kale nin laawiya ayaa waddada soo maray oo intuu u tegey oo ninkii eegay ayuu waddada dhinaca kale ka maray laakiin nin reer samaariya oo waddada ku socdaalayay ayaa ka dul yimi oo markuu arkay isagii ayaa waxaa qalbigiisa ka buuxsamay naxariis isagu waxa uu u tegey ninkii oo saliid iyo khamri kaga shubay nabarkii oo calal kaga duubay kadib xayawaankiisii ayuu saaray oo waxa uu keenay meel makhaayada halkaasoo uu ku dhaqaaleeyey maalintii xigtay waxa uu siiyey makhaayadlihii 2 diinaar oo waxa uu isagu u sheegay inuu dhaqaaleeyo ninka oo waxa uu yidhi markaan soo laabto ayaan ku siinayaa wax alliya wixii kaaga baxa oo midkeebaa saddexdaasi deris ahaan ula macaamila ninkii tuugadu weerartay midka isaga u naxariistay adiguna sidoo kale samee ha celinina carruurta yarariyey inay ii yimaadaan hana diidina waayo waa kuwan kuwa leh boqortooyada ilaah runtii waxaan idinku leeyahay ku alla kii aan u aqbalin boqortooyada ilaah sida ilmo yar oo kale meeshaasi ma uu geli doono oo ku alla kii ku soo dhoweeyey ilmahan magacayga wuu isoo dhoweeyaa oo kii isoo dhoweeyena wuxuu soo dhoweeyaa kii isoo diray waayo midka dhammaantiin dhexdiinna ugu yar ayaa ugu weyn ciisii reer nasaareed ayaa halkan maraya adiga ina daawuudow ii naxariiso aniga maxaad iga rabtaa inaan kuu qabto waxaan rabaa inaan wax arko oo wax arag iimaankaaga ayaa ku bogsiiyey waan arki karaa
waan arki karaa waan arki karaa intii uu sii socday yeruusaalem ayaa dad badan isaga kula kulmeen meel kasta dadkaasi oo isaga weyddiinayey inuu tuso jidka loo maro badbaadinta iyo inuu iyaga baro wax ku saabsan boqortooyada ilaah runtii ninkaanu waa nebi sayidow macallinkaygow i badbaadi jidka runta ah sayidow dadku waxay bilaabeen inay u aqbalaan sida sayid yariixo waxaa jiray nin canshuurqaada ah oo magaciisu ahaa sakhayos isagu wuxuu doonayey inuu ciise arko ilaa uu fulay geed si uu dadka korkooda uga arko dhaqso u soo deg sakhayosow waayo maanta gurigaaga ayaan joogayaa ma gurigayga yaa dooni lahaa inuu gurigiisa joogo sakhiyos muxuu ku gartay iise dhegayso waxaan siin lahaa kalabar waxaan lahaa masaakiinta oo haddii aan qof khiyaaneeyey waxaan u celinayaa afar laabkeed أنا ما أمني عشان قادان عشان تجي تقول في حنايا سورة قلنا maantii guriga waxaa timid badbaadin waayo xitaa ninkani waa ina ibraahim wiilka aadanuhu waxaa u yimid inuu badbaadiyo kuwa lumay dhegaysta waxaannu tegaynaa yeruusaalem oo wixii nebiyadu qoreen oo ku saabsan wiilka aadanaha ayaa